kulan dhexmari karaya Trump iyo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa soo baxay markaas saacadihii ugu dambeeyay kadib madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo booqan doona sidii wararku tilmaamayaan ama ka qayb gali doona kulan caalami ah oo ka soo qayb galayaan madaxweynayaal ilaa iyo markaasi 10 ku dhow oo Trumpna uu ku jiro. waxaan eegi doonaa halka uu ka dhacayo kulankaasi iyo soo kale madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro halka uu ku sugan yahay. aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya dhanka Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa ilaa iyo hadda markaasi la hadal haya halka uu gaadhay iyo goobta uu hadda ku sugan yahay soo kale wadamada uu isku maray. warar sheegaya waxaa jiray markaasi oo soo baxay in madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu markaasi diyaarad ka raacay magaalada Hargeysa kadibna uu tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya kadibna uu tagay wadanka Istaga Imaaraadka Carabta oo uu ka sii duulay oo markaasi uu tagay wadanka Switzerland ee dalka markaasi Switzerland ee qaaradda Yurub kadib uga soo gudbi doono markaasi magaalada Tel Aviv ee xarunta wadankaasi Israel sida xoguhu tilmaamayaan. safar noocaas oo kala ama guud ahaan markaa wado noocaas oo kala ayaa la tilmaamay markaasi madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu maray qaarna uu hadda markaasi mari doono iyadoo dadka qaarna ay ku adkeysanayaan madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro inuu joogo magaalada Hargeysa oo wali uusan ka tagin. arrimahan ayaa gabi ahaan noqday markaasi arrin ay markaasi ku wareeraan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu inta badan 80% ama 90% xogaha ka hesha markaasi baraha bulshada iyo markaasi xogo aanan xaqiiqo ku salaysnayn oo maadaama aynan wax markaasi dowladda magaalada Muqdisho joogta ayaan baaritaan sameyn karin isla markaana ayna lahayn guud ahaanba qaab kale oo xog lagu ururin karayo. waxa inta badan wararkoodu uu ku beeskareysan yihiin ka falcelinta waxa baraha bulshada ka socda iyo waxa baraha bulshada markaasi lagu soo bandhigo qaab dowladeedna uma howlgalaan markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya. taas ay keenaysa marka in wixii xoga ay ka soo yeedho markaasi baraha bulshadaba inay halkaasi ka qaataan. Somalilandna tii baraha bulshada ay blockay oo markaasi ay xidhay. haddii tii la xirayna meel kale oo dowladda Soomaaliya wax ka helayso haddaba xogta soo baxday waxay tilmaamaysaa in madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu dalka Switzerland kula kulmayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. madax kale ayaa ka soo qayb galaysa oo kamid yahay madaxweynaha wadanka Argentina oo aad markaasi loogu saadaalinayay Somaliland in uu aqoonsan karayo maadaama Argentina ay xiriir fiican la leedahay Israel isla markaana ay dad badan oo Israa'iiliyiin ku nool yihiin wadanka Argentina dhaqaalaha dalkaasina ay 100% gacanta ku hayaan dad Israel ka soo jeeda ama asalkooda halkaas ay ka imaadeen. waxa xiriirkoodu uu yahay markaasi mid aad u sareeya Israel iyo soo kale Argentina. taas keenaysa ayaa la markii hore in gabi ahaanba ay Argentina aqoonsato Somaliland.